tartankani kubadda cagta oo ujeedkiisu ahaa dhiirigelinta nabadda oo ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada ee Nabadoon Youth Alliance ayaa waxaa kooxahani kubadda cagta loogu qabtay barxadda xeebta Liide ee magaalada Muqdisho. ciyaartii gabagabada koobkan ayaa waxaa isugu soo haray labadani koox ee naadiga degmada Cabdicasiis iyo kooxda Nabadoon, iyagana guushu ay raacday kooxda Nabadoon, waxaana ciyaartoyda labada kooxba la gudoonsiiyay abaalmarino lagu dhiirigelinayo si sare loogu qaado xirfadooda ciyaarta kubadda cagta ah. qaar kamida ciyaartoydii ka qayb qaadanaysay koobkan kubadda cagta oo u waramayay Somali Channel ayaa sheegay siday ugu faraxsan yihiin tartankani loo qabtay, iyagoona codsaday in ururka Nabadoon Youth Alliance hore ay ugu sii wado tartanka caynkani oo kala ah si ay ugu wanaagsanaato xiriirka ciyaartoydooda ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir, taa oo ay tilmaameen inay qayb ka qaadan karto amniga magaalada Muqdisho. waxaan salaamayaa ururka Nabadoon oo ah wallahi kulay urur isu xilqaamay sidii oo dhalinta isugu keen lahaa amba waxyaabo mashruucaad ugu sameeyay lahaa kulay waa u mahad celinayaa. waxaan haddana codsi u jeedinayaa inay macnaha ay sameeyaan barnaamijyo intaan ka sii balaaran si macnaha dhalinta ay isu dhex gasho ama barnaamijyo saan ka sii balaaran sameeyay. waan u mahad celinayaa ururka Nabadoon 100% بعد برنامج كأدي أدي ومعزين جاران أورك نبضان هل كان معنا وحين وجود جديين معنا كوب نبض ومعنا أد وغيره ونجزم مركا يعني عدة وحان هل كانوا كعصنا معنا إن دلني يرد معنا أمارة سيد بدن معنا دحجل كين لبتشو أو كوب صان عمل ومعنا أورك قبته هل كان محمد وعلينا يا أورك صوماليات أورك سبورتس كوجال أورك نبضان هل كان ما أنت هدي كوب كان حريقين عن جعل إن كوب كان كوب كبلارنا نقطان روح سلام يا أورك نبضان مركا لبعض أدي ugu faraxsanahay maadaama ay noo qabteen koob nabadeed. koobkaasi oo ah koob isku dhaxgal bulsho ay isku dhaxgalayaan dhalinyaro istaqaana, taas oo ah sidiisa dhaxgalku waa inay dadka isdaqaanin ay boolis la dheelaan ay aqoonsadaan ay dheelaan sida marka lagu sheegay sportiga waa dhaxgalka bulshada ma ahan dagaal iyo wax lagu sheegay balwad. waxaan markaa si aad uga codsanaynaa ururka Nabadoon inuu isku dayo inuu si aad iyo aad u baraarujiyo dhalinyarada Soomaaliyeed kuwada maraykanaasan iyo kuwada aan waxba danayna sadooda. marka aad iyo aad u mahadsan ururka tartamada noocan oo kala ayaa iyagu waxa ay qayb ka qaadan karaan isdhexgalka bulshada gaar ahaan dhalinyarada oo iyagu door muhiim ah ku leh ka qayb qaadashada nabadda dalkooda. Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag, Somali Channel, Muqdisho.